bismillahi raxmaan raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa caali midiya aniguna caliira sheekh maxamed ayaan ahay barnaamijkeenna waxaan kusoo qaadan doonaa saaxiibka weyn ee dowladda ruushka oo hubkiisa lagu hubeynaya ciidamada waddanka ukrain ciidankeedu xaggee ka helayeen hubkaas ciidamada dowladda ruushku ay hore ugu dagaalami jireen saaxiibka ruushka ee hadda hubkiisa lagu hubeynaya ukrainse miyuu garabka ruushka ka baxay sidee ukrain hubkaasi ugu gacan gelaya soo dhawaada mar kale haddaad nagu cusubta youtube-ka subscribe noo saar haddaa hore noola joogtin video noo sheergale aan ku bilownay dowladda maraykanka ayaa shaacisay in hubka ay leedahay dowladda iiraan lagu hubeyn doono ciidamada waddanka ukrain ciidanka ukrain hubka lagu hubeynaya iiraan ay leedahay ayaa maraykanku waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen sanadkii lasoo dhaafay ilaa sanadkan gudihiisa hubkaas oo laga qabtay qaybo badan oo caalamka ka mid ah waxayna sheegtay in hubkaasi xooggiisa uu ku socday kooxda xuutiyiinta ee waddanka yeman ka dagaalanta islamarkaana iiraan ay ugu tala gasheen lagu hubeeyo kooxda xuutiyiinta ee waddanka yeman ayaa maalmihii lasoo dhaafay dowladda maraykanku ay dagaal kula jirtay hase ahaatee hubkan inta la qabtay waxay maraykanku ay ku sheegeen in dagaalkan hadda soconaya ee la xiriira qaza dagaalada ka jira uu ka horreeyey waxaa xuutiyiintu ay in badan ay saameyn ku yeesheen badda cas iyagoo maraakiibtii u socotay dekedaha israa'iil iyo kuwii kaleeta israa'iil ay lahaydba iyo waddamada xiriirka la leh markii hore ka bilowday inay joojiso kadibna markii kooxda xulufada ee maraykanku hogaaminaya soo galeen iskuna dayeen inay ka hortagaan dagaalada ama gantaalaha xuutiyiinta dhaftoodii waxay bilowday inay ku darto sidaasna ay u suurto gasho in ay maraykanka iyo ingiriiska maraakiibtooda weerar xoogan loogu geystay biyaha badda cas saameyn badan ayaa dhaqaalihii dunida uu ku yeeshay weerarkaas xuutiyiintu ay ku hayaan ciidamada caalamiga ee maraykanku hogaaminayay si la mid ah kuwa u socda dekedaha israa'iil hase ahaatee hubkan waxaa la sheegay in la qabtay in ka horreysa inta aanu bilaaban xiisadda badda cas maraykankuna waxay sheegeen in baddaasi dhowr maray ilaalay ka hayeen ay ku qabteen hubkan uu ku socday kooxda xuutiyiinta markii hubkaasi la qabtayna maraykanku waa u hayay haddana waxay bilaabeen maamulka biden inay ku hubeeyaan ciidamada waddanka ukrain ruushka wuxuu isticmaalaa diyaaradaha lagu yaqaana shahiid ay soo saartay iiraan iyo kuwo kaleeto saas kale drona oo isqarxiyo iiraan ay soo saarto haddana waxaa bilaaban doona in hubka fudud ee iiraan ay soo saarto sidoo kale ciidanka ukrain ay adeegsan doonaan waxaana halkaas kasoo bixi doonta in labada saf ee ukrain iyo ruushka ay kala adeegsan doonaan hubka ama sahanadda ay leedahay dowladda iiraan haddii arrintaani laga dhabeeyo maraykanku ka dhabeeyo waana u muuqata inuu ka dhabaynayo waxay noqon doontaa in ciidamada ruushka lagala hor imaan doono hubka saaxiibkiisii ugu weynaa ee bariga dhexe ee ahaa dowladda iiraan iyadoo aad ayuu cambaaraysay falka noocaas ah waxayna sheegtay afduub in lagu qaato hubkaas oo iyadu ay leedahay daawadayaal kusoo dhawaada caali midiya mar kale intaas ayaana barnaamijkeena kusoo afmeerayn